jaamacadda Addis ee magaalada Burco ayaa xaflad ay ku soo go'tagayaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda isla markaana ku soo dhaweynayaan arday cusub oo ku soo biirtay jaamacadda kana soo qayb galeen mas'uuliyiinta degmada madaxda jaamacadda xildhibaano waalidiinta ardayda iyo marshara badan ayaa lagu qabtay hotel Deero ee magaalada Burco maamulaha jaamacadda Addis ee Burco Maxamed Saciid Maxamed oo gooraalkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri jeedada xafladani waxa weeye sida boorka ku qoran waxa la soo dhaweynayaa ardaydii sanadkan jaamacaddu u qaadatay inay ka mid noqdaan ardayda jaamacadda Addis University ee Burco campus waxaan rabaa inaan marka labaad ujeedada labaad ee xafladdu waxa weeye waa ardaydii ugu horeysay ee jaamacaddan iba furay hurgeliyay inay halkan ka dhacdo laakiin waxaan leenahay inaanu xaflad maamuusa u sameeyno inay qalin jabiyeen xafladoodii aad sababa ugu soo dhacday halkaas sawirada aad ku aragtaan kadib inaan halkan ugu sameeyno mid kale Ahmed Ismail oo kamid ah guddiga jaamacadda Addis Dr. Faisal Abdi Baraare oo kamid ah guddiga tacliinta sare ee Somaliland iyo madaxweynaha degmada Burco Maxamed Xasan Xoday ayaa iyaguna hadal ka jeediyay xafladaasi waxaan rajaynaynaa waxbarashadii galbeed loo aadi jiray in iminka Burco loo soo doono insha Allah anigu tiimkii ugu horeeyay jaamacaddan ka qalin jabiyay golden team baanu bixiyay golden team waxay taas ka marakacaysaa in Burco waxbarasho doonayso jaamacadda Addis diyaar waxay u tahay inay la kulanto ama miid garayso expectationkiina inaan farxad kula ciido ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Addis University College waxay aad iyo aad ii taabanaysaa farxad gaar ah bay ii tahay waxaan idin leeyahay congratulations ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan idinka baryaynaa inuu camalkiina iyo aqoontiina idin barakeeyo ardayda cusub ee soo galaysa jaamacaddana waxaan leenahay kuwii hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala siduu ugu fududeyay cilmigoodii iyo aqoonteedii baan idinka baryaynaa idinka fududeeyo ka gobol ahaan iyo ka degme ahaan farxad weyn bay noo tahay xafladan oo ay si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay xubno isugu jira macallimiino waalidiinta ardayda iyo marsharaf badan kuwaasoo dhammaantood maamulka jaamacadda ugu hambaliyay heerka wacan ee gaadhay jaamacaddu gabagabadii xafladan ayaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.